kulanti wanaagsan daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeeni xog waran iyo maanta qodobada wararkana waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo muddo gorin ka digay dib u dhac ku yimi furitaanka shirka madaxda maamul goboleedyada uga socday magaalada Dhuusamareeb Soomaaliya oo la wareegtay hogaaminta madasha wasiirada waxbarashada dalalka Carabta iyo dowladda Liibiya oo qarka u saaran in la wareegto magaalada Sirta qodobadaas iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu ka hadlay doorashada 2020 waxaana uu cadeeyay in ay dhici doonin muddo kornin ayna muhiim tahay in doorashada waqtigeeda ay dhacdo ra'iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in doorashadu ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay lagana fogaado in laga shaqeeyo fikir ku saleysan muddo kornin isagoona intaasi raaciyay in muddo kornintu ay horseedi karto qaraaro siyaasadeed iyo mid amni ra'iisul wasaare Khayre ayaa waxa uu sheegay muhiimadda ay leedahay in doorashadu ku dhacdo jawi midnimo iyo wada tashi ku saleysan waa markii labaad ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre uu cadeeyay mowqifkiisa ku aadan doorashada 2020 dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya waxa uu soo dhaweeyay baaqa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo dhaweeyay baaqa golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in doorashada soo socota ay ku qabsanto waqtigeeda madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii xoojinta dimuqraadiyadda dalka iyo in la sii horumariyo hanaanka doorasho madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay sida ay laga maarmaan u tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka kuna dhacda jawi midnimo hadalkan ka soo yeeray madaxda dalka ugu sareysa ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmahan la hadlayay in dowladda ay ka shaqeynayso muddo kordhin dowladda Soomaaliya ayaa la wareegtay hoggaanka madasha wasiirada waxbarashada ee dalalka Carabta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegtay hogaaminta madasha wasiirada waxbarashada hidaha iyo dhaqanka ee dalalka Carabta oo ay ugu dambeysay hogaaminteeda 17 sano ka hor wasiiru dowlaha ahna kusimaha wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Maxamed Cabdulle oo gudoominaya madasha 25aad ee wasiirada waxbarashada dalalka Carabta ay ku midaysan yihiin ayaa tilmaamay qiimaha shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay u leedahay inay gudoomiyaan madashan mar kale kadib meertadii toddobaad oo Soomaaliya ku doonsiisay sanadkii 1983 dhankooda wasiirada dalalka Carabta ayaa waxa ay ugu hambalyeeyeen Soomaaliya gudoominta meertada 25aad iyagoo u rajeeyay inay horseedo guulaha dib u dhac ayaa waxa uu ku yimi furitaanka shirka madaxda maamul goboleedyada ee uga socday magaalada Dhuusamareeb waxa maanta dib u dhacay shirkii madaxda maamul goboleedyada oo maanta lagu waday inuu ka furo magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulkaasi waxaana hadda magaalada Dhuusamareeb ka socda shirar gaar ah kuwaas oo ay yeelanayaan madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ee dalka ku jira kaas oo martigeliyay madaxweynaha maamulka Galmudug ha yeeshee waxaa la sheegay in shirkaasi uu dib u dhacay wararka aan helnay waxa ay sheegayaan in sababta uu shirku dib u dhacay ay tahay in madaxdu ay isla garteen in maanta oo Jimco ahayd ay nastaan isla markaana maalinta berita uu shirku furmo go'aanka shirka magaalada Dhuusamareeb ilaa beri dib loogu dhigay ayaa la qaatay kadib markii xalay kulamo gaar ah ay dhexmareen madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug kasoo koob dhaca shirkii maanta ay furmi lahaa kaas oo yeelan lahaayeen madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa hadda socodsiin gooniya kuwaas oo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug halkan nagala socotaan oo warbaahinta xog waran dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay daabacayso lacag cusub oo shilin Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay dib u daabacayso lacag shilin Soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku hawlan tahay ay sidii ay dib ugu soo daabici lahayd lacag shilin Soomaaliya waxaana uu sheegay wasiirku in dib u daabicista lacagta shilin Soomaaliga ay ku bixi doonto kharash gaaraya 40 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana intaasi ku daray in qayb ka mid ah kharashaadkaasi ay hadda dowladdu hayso inta kalena ay soo dhameystiri doonaan diyaaradaha Mareykanka ayaa waxa ay duqeyn cirka ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose adaliska ciidanka Mareykanka ee Africom loo soo gaabiyo iyo dowladda Soomaaliya ayaa shaaciyay duqeyn cirka oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waraal ka soo baxay daliska ciidanka Mareykanka ayaa waxa lagu shaaciyay
intuu qeyntaasi lagu dilay mid ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab ayadoona lagu burburiyey bartii al-shabaab ay ku lahaayeen halkaasi. dowladda Liibiya ayaa qarka waxa ay u saaran tahay in la wareegto magaalada Sirta. ciidamada dowladda Liibiya oo garab ka helaya kuwa Turkiga ayaa waxa ay ku dhow yihiin inay gacanta ku dhigaan magaalada Sirta oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Liibiya. magaalada ayaa waxaa gacanta ku hayay in ka badan 10 sano xoogga mucaaradka ee la dagaalama xukuumadda dalka Liibiya. wararka ayaa waxa ay sheegayaan inay qarka u saaran tahay magaaladaasi inay gacanta u soo gasho dowladda uu caalamku aqoonsan yahay Liibiya. waxaa lagu soo waramayaa in magaaladaasi ay ku nool yihiin kumanaan shacab ah, laga dareemayo cabsi xooggan oo ku aadan inay fowdays ku daraan ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa Turkiga iyo kuwa daacadda waa General Khalifa Haftar oo mucaarad ku ah dowladdaasi. guud ahaan daawadayaal intaas waxaan ugu soo afbeeraynaa wararkeennii maanta iyo xog waran